عذر دارada shareecadu ay noo gashahay qofka muslimka ah ee ahkaamtii laga fudaydinayo bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaasha qiimaha badan waa mar kale ee barnaamijkeeni mahuraanka muslimka waxaanu ku soo guda jirnay barnaamijkii mahuraanka muslimka qaybtiisa ka warramsay salaada waxaanu maanta ka sheekeyn doonaa markaanu ka soo warranay salaada arkaanteeda shuruudeeda aadaanka iqaamada imaamnimada ahkaamteeda waxa soo dhan qofka muslimkii iyadoo ay noognahay 24 saacadood inay waajib ku tahay 5 salaadood haddana مانعة وكيني كرا صلاة إن وقت جدي كدب لعو قابكي يكيفي دي وتكني لقى ضعفي تردي لقى دوني لقى دمي بتشران أعذر داره وشريعة ينوقش هاي حابين لنا وحجرت أعذر داره شريعة ينوقش هاي أو حنونك سفرك يعبسده صدق ذن أعذرته أما عذر داره وحيكوك للدوين قابكي صلاة دين السامين ويلانيان haddii qofku xanuunsado ahkaamtii salaadu ay lahayd wax kamid ah laga dhaafaya haddii qofkii safar uu galo tiradii salaada laga doonayo wax kamid ah laga dhaafaya haddii qofku uu dagaal ku jiro qaabkii salaada loo tukanayo wax kamid ah laga dhaafaya ama laga khafiifinayo marka kala duwanaanshaha salaaduna wuxuu noqonayaa hay-adeedii iyo cadadkeegii ayaa ku kala duwanaanaya inagoo soo qaadanayna qaacidada Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo dajiyay marka si guud shariicada ka warramayo in Ilaahay leeyahay yuriidu Allahu bikum al-yusra ولا يريد بكم العسر إلهي فضيت بالله عريس للمرهب مركنا إلهي مركو رمي دين توكيل وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي سبحانه وتعالى الدين تدحي ذي كم يلين حرج يا عريس يا وحيدا قاضي كريم حبيب كريم محمد عليه الصلاة والسلام يسقنا وكيلها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هدي عن واحد أمره واحد كرات مادان أمر كاس ليدن أمري وحد كأودان قاعدة معروفة جرت عند الفقهاء وتلاحظ أن المشقة تجلب التيسير هذه مشقة قفك مسلم كيكو قمتو أما يكون عضو أما لسو درسو وحي كانتا أما مشقة سوادتا تيسير عبادين كل حيرة هذا إن شاء الله تعالى هدي الله ودي لنا وقلاده وحنكون مدونا إنه سجود مختطفات سمين دونا أعذرت أم عذر دارة الشريعة أي نوع قشهاي قفك مسلم كأحكامتي لقف ضيدنا إنه وصدح والمرض السفر الخوف إن شاء الله تعالى إنها سنكون مدونا الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله توفيق